السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قليقة كسر وهذا مركز يعني متك يوتيوب channel كذا كحسبت سبسكرايب لي هدي أنا شفت الناس يشوف فيديو كان لايك ده شيرنا ده كومنتوا واركتدينا صاحب يا isku soo noqdo wanaagsan saaxiibada qaaliga ah fiidiyogana maanta waxaan idin kula wadaagayaa ama uu ku saabsan yahay waa drivers haddaba driverskana muhiimad intee leeg ayuu laptopka u leeyahay waxaa dhici karta in aad laptop soo iibsatid ama hadiyad ahaanba lagu siiyo laptop isla markaana aadan aqoon dhaxa u lahayn sida anigaba hadda ka hor igu dhacday laptop aan hadda ka hor soo gatay kabacdina xafada markaan la imaaday waxa aan ka waayay bluetooth sidoo kale laptopka touch ayuu ahay markii aan soo gadanayay xafada markaan imaaday touchkii ma shaqeynayo sidoo kale waxaan doonayaa inaan u isticmaalo SD card-kan SD card-ka markii aan galiyana SD card-ki ma soo qabanayo haddaba ciladu maxaa ay tahay waa isweydiiyay haddii markaas aadan aqoon u lahayn oo aadan markaas aadan fahansanin in waxaan ay tahay drivers iyo waxyaabahaas waxaad geynaysaa farsamayaqaan ama fuundi halkaasna lacag ayuu kaaga cunayaa iyadoo cilada lagu xalli karo one click oo kaliya haddaba saaxiibayaal fiidiyoogan maanta waxaan kugula wadaagayaa qaabka haddii laptopkaada ciladahaas aan soo sheegay iyo qaar kale oo fara badan oo ay ka mid tahay mouse touchka xataa inuu marar qaar dhumo in mararka qaar aad weysid speakerka ama codkiisa mobilka aad weysid waxyaabahaas oo dhan waxaa xalliya driverska haddii markaas ay ciladu tahay cilad la xiriirta softwareka haddaba saaxiibayaal fiidiyoogan dhammaadkiisa waxaan kugu tusayaa qaabka aad one click ugu update gareyn kartid laptopkaada driversiisa oo dhan marka ugu horeyso laptopkaada waxaad ku xirinaysaa qadka aad ku xirinaysaa qadka marka aad ku xiriirsid ka bacdina oo internet speed leh waa inaad ku xiriirsaa horta marka koobaad marka internet ku xiriirsid waxaad tagaysaa qaybta search-ka ayaa tagaysaa ka bacdina waxaad ku qoraysaa qoraalkan update marka aad ku qortid circle-kan yarka oo update ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatidna meeshan ayuu ku keenayaa meesha marka uu ku keeno update ayaa haddana kusii dhufanaysaa marka aad ku dhufatidna waxa uu keenayaa list dheer ayuu keenayaa waxaa laga yaabaa inay cabaar qaadato iska sug waa uu keenay doona listigaas markii uu ku keeno waa ujeedaa qaarkan way bilowdeen qaar kale ma bilaabanin qaar kale waxbay sugayaan marka saacado badan ayaad siinaysaa marka adiga hal saac oo kale aad iska siinaysaa laptopkana ha iska shidnaado oo macnaha yuusan debin qadkuna ha ku xirnaado meel iska dhig kabacdina waad arkaysaa inay wada galayaan markaas markay wada dhamaadaan oo aragtid in aysan hal mid oo download ku qoran tahay aysan meesha ku jirin oo ayaad restart u diri kartaa laakiin inta mid ay ka dhiman tahay iska sug isdeji ilaa dhammaantood ay galayaan markaas oo ay ku wada qornamayso restart ay u baahan yihiin qaabkan oo kale markii ay dhan ay wada galaan aad aragtid inay mid walba ay ku qoran tahay restart ayaa markaas computerkaada restart u diraysaa ama aad daminaysaa oo daaraysaa kabacdina restartiga waa kana SD card-kii hadda uu gelinayay laptopku isla laptopkii ayaan gelinayaa waa u jeedaa waa u soo qabtay waa u shaqeynayaa waxa kaliya oo ka maqnay waa driverskaas haddana touchka fiiri touchki waa u shaqeynayaa ciladana waxa ay ahayd drivers oo kaliya sidoo kale bluetoothka waa ay shaqeynaysaa iyadana marka wax walba oo laptopka ah waxa ay ku xiran yihiin drivers mar walbana laptopkaada update garee oo weekly ama mar walba adii meeshan ku dhufo update-ka u dirso si markaas oo kugu update gareeyo u noqdo update-kii ugu dambeeyay aad iyo aad salaam ya saaxiibada qaaliga intaan fiidiyoogan xiga ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh